maamulka gobolka saaxil madaxda degmada iyo maarayaha dekedda berbera ayaa maanta ka qayb galay kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshadu soo dhaweeyeen go'aankii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Filaanyo oo ku kala qaaday labada doorasho ee madaxtooyada iyo wakiilada ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka gudida xaafadda degmada berbera iyo qaar ka mid ah uqaasha gobolka saaxil waxaana ka mid ah hadalada afka maamulka xaafadda wadajir kala qaadida oo kala qaaday madaxweynuhu waan ku hambalyeynaa anta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankii uu soo saaray waxaan ku taageersanahay berbera 90%. waayo biskuul meel ma wada joogo warna isku ma seegana reer Soomaaliland wax u kala qarsoon ma jiraan dantoodana iyaga yaqaana reer Soomaaliland waxay leeyihiin geesiyaal waxay leeyihiin rag wax garana waxay leeyihiin jaamaciin xabad meelaha ka quuqda lahow dadku dantooda way garanayaan sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay maarayaha dekedda berbera Axmed Yuusuf Dirir iyo duqa magaalada berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin heer degmo iyo heer qaran iyo saraakiisha ciidanka bulshaweynta xaafadaha ay ka koobantahay degmada berbera marti sharafta kale haweenweynaha iyo madax dhaqameedkaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta kadib mahadda koowaad ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala ina waafajiyey in aynu mar kasta madaxdeena ku garab taagno go'aamada toosan ee ay qaataan waxaa kaloo mahadda labaad siinayaa xaafadaha degmada berbera oo si mutadawacnimo ay isugu soo abaabulay inay taageeraan go'aanka uu madaxweynahoodu qaatay ee uu qaaday dantooda iyo mustaqbalkooda sidii uu dunya wadiin marka hore ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in yar iyo weyn ay maanta halkan ku joogno hadday yihiin dhammaan dhaqameedkii gobolka iyo hadday yihiin ururadii bulshada oo haween iyo rag ba ay maanta halkan ku joogno inaynu isgarab taagno oo taageerno oo aynu noqonno usha u dhidban madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Filaanyo inuu yahay madaxweynaha qaranka oo uu amarkiisu ka shaqeynayo dalka oo amarkiisa mooyaane kale aan ka shaqeynayn waxa uu shacabka ugu taliyay inay isgarab taagno inaguna ay noqono mudiyeen aad iyo aad ugu mahadceliyay dhammaantiinba ugu dambeyn waxaa halkaas soo xidhay gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac Yuusuf Axmed halkan waxaan uga marnayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland salaan gaar ah marnayaa maanta waxaanu isugu nimid inaanu ku taageerno labadii doorasho uu madaxweynuhu kala qaaday isagoo u kala qaaday sidii dalkeenna iyo dadkeenna doorasho xal iyo xalaal ay ugu dhici lahayd wuuna ku mahadsan yahay waanu ku taageersannahay dowladaha caalamka ururka igaad dowladaha deeq-bixiyayaasha waxaan halkan hawada u marnaynaa cod dheer waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland bulshada Soomaaliland baa dooratay cod buu ku joogaa cod baa lagu doortay dhibaato kasta oo waddanka Soomaaliland ka dhacaysana isagoona u ogolayn go'aanka uu gaadhay ee geesnimada leh ayaanu ku taageersannahay haddaan nahay shacbiga iyo mas'uuliyiinta dhawaan ayay ahayd markii uu soo saaray go'aankan madaxweynaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland walow ay ku gacan saareen deeq-bixiyaasha caalamiga iyo xisbiyada mucaaradkiiba Cabdirashiid Maarik Cabdi telefishinka caalamiga Soomaali Cable magaalada Berbera